Soomaaliya qomeel ay ka dhacdo lama arag murugadaan oo kala hadda kor qofkii dishay qofkii laga dilo qof dhimasho waa la geeri waan u joognaa laakiin qofkii inta uu ka dhinto si walba ku dhintay aad meedkiisa duugato qurux waa dhimasho waa la yaqaanaa laakiin murugo waay meedkiisa waa weynay waxaan codsanaynaa oo mar codsanaynaa mar laba codsanaynaa mar saddex codsanaynaa meedkiisii in nala siiyo oo aan meedkiisii aan helno ilaa haddeeta waxaan ku qanacna ma hayno meedkiisii in nala siiyo aan codsanaynaa wiilka la yiraahdo Axmed Cabdullaahi Caydiid oo sharci la'aanta lagu dilay oo maxay too ehelada iyo tolka iyo qaraabada iyo waalidka iyo walaalka ka murugoodeen oo sida sharci darrada meedkiisa la ii diiday oo maxay too meelaan hadda aanu abaar oon hooyadiis ahay oona meedkiisa arag bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga oo ah Nadiifo Faarax Cabdi ninka la yiraahdo Axmed Cabdullaahi Cabdi Caydiid oo gardarrada lagu dilay sida qaladka ah oo cadaalad darrada lagu dilay oo meedkiisii aan waayay oo ehelada iyo waalidka iyo walaalka iyo tolka dham ka murugooday waa si aada oo cajiib leh oo la arki karin aan la arki jirin baan uga xumaaday waxaan u dareemayaa cadaalad darro aan hadda ka hor la arag oon la maqal oon Afrika iyo Eesha ka dhicin oon dal iyo dabad ka dhicin baan u arkay markii qofka la dilo qofka eheladu waa inay duugataa waalidkiisa waa inuu arkaa walaalkiisa waa inuu arkaa eheladu dham waa inay aragtaa meedka oo la duugto oo meeshaad ku ogtaa qabrigiisa ka siyaarato hooyadiis baan ahay meedkiisa ma arkin meel lagu duugay ma arkin si cadaalad darro ah oon la maqal oo la aragna waa loo dilay waa murugoonay haddaan hooyo ahay haddaan maxay too ehel leenahay haddaan walaal iyo waalid leenahay murugo muslimka kala gaartaan maxay too na soo gaartay taariikhdiisu waxay ahayd ragga ku beegan 26 jirka 27 jirka 6 sano ilaa 7 bilood oo xiraay intaasna cadaalad darro u xiraa sharci lama marin maxay too sharci looma baarin awal kas wuxuma uusa dilin kas waa la yaqaanaa oo inta la soo kor istaago bash xabada lagu siiya wuxuu ka tagay sida aan aragnay gabar haddana wararkana soo gaarahaya islaan baa wiil la tagtaa la yiri anagu hadeer ka hor arag haddana aan rabnaa inaan raad qaadno meeshay kula go'doontay inuu dhintay inuu nool yahay waa jecelnahay meydkiisa inaan helno oo xilligan haddaan meydkiisa helayno weli ma usa googo inaan anagu meel aan naqan ku duugano guriyahana ku duugano meydkiisa waan doonaynaa si weyn oo qalada oo muruga ah oon la arki jirin waa tii koobaad oo dhacday oon weli la arag hadeer ka hor oon habar gidir ku dhicin oon hawiya daarood meel soo marta la arag Soomaaliya qomeel ay ka dhacdo lama arag murugadaan oo kala hadda kor qofkii dishay qofkii laga dilo qof dhimasho waa la geeri waan u joognaa laakiin qofkii inta uu ka dhinto si walba ku dhintay aad meedkiisa duugato qurux waa dhimasho waa la yaqaanaa laakiin murugo waay dawlad cadaalad haday jirto ama maxay too tol jiro ama cadaalad jirtana in meedkiisii naloo raadiyo maxay too wixii wax nala kaga qabto wixii oo awlaadi oo ka tagay wixii oo asagu ugu maqnaalnalo wax nala kaga raadiyo aan doonaynaa anigoo magacayga la yiraahdo Xasan Cabdullaahi Cabdi la dhashay marxuumkii dhintay Caydiid Cabdullaahi Cabdi Axmed liijan magaciisa naynaasiisan Caydiid ay ahayd si cadaalad darro ah ayaa ninkaas loo dilay meedkiisii ilaa hadda ma hayno waa doonanay waa u tagnay dawladda federaalka way noo diideen habeen midooba xabsi lagala baxay 9 saac habeen xabsi lagala baxay waa la watay meel hogaha lagu riday waa la dilay markii la dilay asoo dhiigis ka faraqlay oo jawaanka madaxa ugu jiro ayaa god la galshaa la yiri sida nolol sheegay ilaa haddeertaan nolol iyo geeri ma hayno inuu dhintay wax noo cadeeya lama arko godow inta galsheen ay dhahan hadda godkaana ku jira nin islaameed aha dul kala aha beer ku falayana haddeertaan wax noo cadeynayo ma jirto islaamnimo ma aha waxaas dadka bilaadanka waxa muhiimadu tahay in la qanciyo qalad ay lagu dilay oo haddana qalad labaad laga galay ninkii waxa aan la ogeysan walaal la ogeysiin ehel la ogeysiin ana walaalkiis ka weynaan ahay wax isoo wacay waxay ogeysiyay midna ma lahan 6 saac ay ugu dambeeyay wada hadalkiisa salaada waagu ma ku bariyay salaada subax la tukadana waxaan maqlay waa dhintana ka soo ku daayay
allah u naxariisto cadaalad darra ninkaas lagu dilay